gudoomiye beel oo ah gudoomiyaha gobolka Groningen marka leeyahay waa gobol ku yaalo wadanka Netherland ama Holland oo taqaanaan ay gudoomiye maanta xagee jiro waxaan jiray arrimaha qaas oo beesh maxaan ka soo qaban waxaan ka soo qabanay oo aan ka hadlaynay mustaqbalka beesha ka soo jeedo waxaan maqlay in oo aad ku abaabuleyseen in dadka la taageero tabaaleysan ee Soomaaliya ku nool taas waajibka nasaaran ayaan gudanaynay waan ku qasbanaa maxaa idin hirgalay waxyaabo badan ayaan hirgalay waxaan hirgalo ka mataqaanaa arrimahan maanta qabana kamid ahay inaan ka hadalnay sidaan wax u taakulay lahayn iyo sidaan wax u qaban lahayn iyo sidaan wax u mataqaanaa aan soo garab galay maxaa isleedii waa ka taageeri kartaa xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada inta karankeena labadaas dhinac waa dhinac muhiim ah xagee aad ku bilaabaysaan inaad taageertaan beeshii mudan ee mataqaanaa beesha aan ka soo jeeday degantahay meesha mudan xagee tahay ma koonfurba ma waqooyiba ma bartamaha Soomaaliya iyo koonfurtaba magaalooyinka aad qorshaysteen ma nooga sheegi kartaa Aalbuur Jacar Buulamareer waa Dayniile intii mataqaanaa beesha ay degtay oo dhan waxaa halkani oo nala socdo oo kale korneelka cidda ay korneele dhinaca ammaanka dhibaato xoog leh tolka haystaan maxaa kula talileen tolka talada aan u hayo waxa waaye in horta tala midaysan ay ku howlgalaan markaas ammaanku waa imaanaya taladaas ayankaa nooc walbaba ha ahaatee in tala midaysan ay ku howlgalaana qolbaa gooni u howlgelin taas ayaa ammaankan lagu sugi karaa waana iska imaanaya ammaanka automaatic markii talada meel looga dhigo mahadsantahay gudoomiye korneele